بريها وحى مجال هذا آدو قبصدي وحى اللي يدا صرف لي فوركس أي آدو هايست أسقونا قيبتها حرام تابو كم بديها صرف كاللعجها قلات بانك الله يقول لك متك أسقى إنه حلال يهاي أو بناء يهاي أو صندوق لهاي بارواركا waxaan ku soo gabagabeynayaa cun wax xalaal ah oo ku banaan intii aad cun leed wax xaraan ah aan wax shaki kaaga jiro assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh barnaamijkan waxaan u hadli doonaa saddex arrin kow waa maxay forex labo diinta islaamka maxay ka qabtaa forex saddex maxaa habboon inaan sameyno intaasi oo dhammaystiran waxaa idin soo jeedin doona anigoo ah cabdilmaalig maxamuud cali haddaan u guda galo qodobka koowaad waa maxay forex waxay ka kooban tahay laba eray oo kala ah foreign iyo exchange oo la micno ah kala beddelka lacagaha qalaad ama sarifka lacagaha qalaad forex waa suuq online ah kaasoo aadan u aadaynin dibadda adigoo ka isticmaalaya goobtii aad joogto forex waa xirfad la barto u baahan aqoon iyo waayo-aragnimo forex waxaa dhacda in mararka qaar aad faa'iido mararka qaarna aad khasaarto haddaan u guda galo qodobka labaad diinta islaamka maxay ka qabtaa forex xalaal mise xaaraan su-aashan waxaa la weydiiyey qaar ka mid a culimmada soomaaliyeed badankooda way xaaraantimeeyeen qaar kalena way xalaaleeyeen culimmada xaaraantimeysay waxaa ka mid a sheekh maxamed macalin bashiir oo dadka ugu digay kuna tilmaamay inuu yahay shay xaaraan ah oo aanan bannaaneen حرامت قفك عنا عقوبوين بولا كل ميا الدنيا هي قبرك هي آخرة صدق بريها وحى مجال هذا آدو قبصدي وحى اللي يدا صرف لي فوركس أي آدو هايستا أسقونا قيبتها حرام تابو كم بديها علوم بدن ويا عداية هرنا ويا وجهات لين دبدن بنا علوم وجهات لين culimmada waxaa ka mid ah sheekh maxamed cabdi umal isagoo dadka u sheegay inay ka fogaadaan maadaama aysan bannaaneen waxaan dhihi lahaa ma kusoo gabagabayn lahaa meeshaasi waa meel halisa si caam iyo si khaasaba halis u ah ganacsigeeda iyo in faa'iido laga raadiyana wax shareecada ku bannaan maaha marka la iska ilaaliyo ninkii ku jirina ha ka baxo hada billahi tawfiiq mid ka mid a dhallinyarada soomaaliyeed ayaa ka hadlay muxaadaradii sheekh umal wuxuuna yidhi markiiba waan ka hadalnay waxa uu sheegaya shiikhu iyo waxa aan ka shaqayno inay kala duwan tahay waan sheegnay waan sharaxnay balse dadka intii rabtay inay fahamtay oo markaasay fahamtay iminka waxaan fahamsiinaynaa inta hadalkaas aan ku qalbay waxaan tartiib u dul istaagi doonaa qodobada uu shiikhu ka hadlay marka uu forex ka hadlayay ee uu yiraahday qodobadan iyo qodobadan dartood ayaa waxa la yiraahdo ay forex khalad ku tahay haddaba laba midkood weeye in dadka sheekha u waramayay aysan iyagu horta forex ka aqoon dadka sheekha u waramayay sheekha wax forex la soo baxay kaalay ka hadal dadkii yiri ayaga horta forex aqoon ama warbixin khaldan bay siiyeen ama researchka dadka suuqa u sameynayay sheekha dadka researchka iyo cilmi baarista la sameynayay ayaa shaqo fiican qaban sababtoo ah muuqaalkii uu sheekhu duubay internet ku dhex yaala maaha wax been laga abuuranayo waxyaalaha uu ka sheekeynayo iyo forexka aan ka shaqaynana shaqaltoona iskuma laha culimmada xaaraantimeysay waxaa kaloo ka mid a koox culamaa oo masjidka abi hureyre muxaadaro ku qabatay si ay dadka ugu digaan arrinkaasi culimmada xaaraantimeysay waxaa kaloo ka mid a sheekh maxamed dirir oo asna sheegay inaysan bannaanayn bal waa kana ila dhegeyso bahalkan la yidhaahdo forogaska dadka badankiisu ma wada yaqaanaan laakiin waa sarif imika dadku ay ku shaqaystaan oo da'yar badan in ay isticmaalaan bahalka isaga ah
waxyaabo badan oo ku xaaraantinimooyo ayaa jira oo ay ka mid tahay ribada iyo qabniga iyo qararka qofkii la dagayo iyo xoolihii muslimka oo meelo kale oo shisheeye ku shubmaya marka ribada labadeedii noocba way jiraan riba alyad wa riba alqard kuwa wax ku amaahinaya baanka wax ku amaahinaya ilaa amaaba ku jirtee dulsaar baa jira ama dilaalkaa ku saaraya dulsaar mar haddii ay waxaaga yeesheenoo ciddii wax ku amaahinaysa wax saareen sax maaha lacagta sarifkaana lama kala qaato markiiba ilbiriqsiyadaba lama kala qaato sida teenan electronic oo kale muddaa u dhaxaysa wakhtiga aad lacagtii kugu soo noqonayso marka culimada casrigu markii ay isla miisaameen iyo buxuufta iyo daraasadaha laga qoray inuu xaaraan yahay baa loo badan yahay culimmada xalaaleysay waxaa ka mid ah sheekh xasaan oo sheegay inay bannaan tahay oo wax diidaya aysan jirin sarifka lacagaha qalaad baan ka hadlaya online-ka midka asaga ah inuu xalaal yahay oo bannaan yahay oo uusan dhib lahayn baan u arkaa ma doonayo shay ilaahay idinka xarimana idiin banneeyo shakhsiyan aakharana dembigiisa aan qaado haddaan u guda galo qodobka saddexaad maxaa habboon inaan samayno nebiga sala allahu calayhi wasallam wuxuu yidhi dac maa yuriibuka ilaa maa laa yuriibuk oo micnaheedu ah ka tag wixii ku shaki geliya oo aad waxaanan ku shaki gelinaynin waxaan ku soo gebagabeynayaa cun wax xalaal ah oo kuu bannaan intii aad cuni leed wax xaaraan ah aan wax shaki kaaga jiro